Sacaada Baxar Guuleed waa hooyada dhashay wiil yar oo xanuun halis ahi hayo isla markaasina horay aanu ugu booqanay hoyga ay ka deganayd deegaanka Gargaara ee degmada Lughaya halkaasina aan kaga soo qaadnay warbixin salka ku haysa xanuunka wiilkan ay dhashay oo aan ka soo gudbinay TV-gan caalamiga ah ee Somali Channel. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha muxsiniinta ah ee ku dhaqan dunida dacaladeeda ayaa waxay soo gaarsiiyeen deeq lacag ah iyaga oo ugu soo hagaajiyay xarunta TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel ee degmada Saylac. Deeqdaasi lacagta ah oo dhanayd $1,200 oo aan gaarsiinay isla markaasina aan guddoonsiinay hooyada dhashay wiilkaasi. Dadka ku soo caawiyay deeqdani lacagta ah ayaa waxay kala ahaayeen sida tan: wiil ka mid ah walaalaha muslimiinta ah ama muxsiniinta ah ee ku dhaqan dalka Norway ayaa wuxuu soo gaarsiiyay $200. gabadh iyaduna dalka Mareykanka ku nool oo Aamino la yiraahdo waxayna soo gaarsiisay $300. wiil inama dhalinyar ah oo iyagu ku dhaqan dalkaasi Mareykanka gobol ka mid ah dalkaasi Mareykanka ayaa iyaguna waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan $550. wiilashaasi ku dhaqan dalka Mareykanka waxa wakiil u ahaa Cusmaan Xuseen Aadan wiil lagu magacaabo oo isagu lacagtaasi noo soo xawilay ama nagu soo hagaajiyay. waxa kale oo iyaguna lacag halkan ku soo diray wiil ku dhaqan dalka Sweden oo lagu magacaabo Khaliif oo isaguna la soo gaarsiiyay lacag dhan $100. iyo Axmed Maxamed Saleebaan oo ku dhaqan dalka UK oo isaguna $50 soo gaarsiiyay. taasi aan hore u akhrinay oo cadadkeedu dhan yahay $1,200. waxaanu hadda si toos ah ugu wareejin doonaa hooyada dhashay wiilkan yar ee isagu xanuunsanaya, Sacaada Baxar Guuleed. Sacaada Baxar Guuleed oo ka hadashay goobtaasi ayaa waxay si niyadami ah ugu mahad celisay dadkii iyagu ku soo deeqay lacagtan maanta soo gaadhay. sida oo kalena waxay sheegtay in ay ka gudoontay dadkaasi ka damqaday xanuunka haya wiilkan yar ee ay iyadu dhashay. lacagta deeqda inta ka dhan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan soo gaarsiiyay, walaalahana soo gaarsiiyay. waan mahadnaqayaa Ilaahay keenay ee nagu dhiibay, waan mahadnaqayaa kuwiina soo gaarsiiyay inta noo damqadayna waan mahadnaqayaa. inaka walaalkay ay garab taagan ee arinta halka aan joogo anoona aqoon halka iigu yimiday idinkana intaas oo hawlo noo soo galay idinkana halka aad joogtaan warka idin soo gaarsiiyayna isagana waan mahadnaqayaa. kuwa walaalaha ee lacagta inta ka dhan soo dirayna waan mahadnaqayaa. deeqda alla keenay idinkuna aad keenteenna waad ka gudoomay 90% goor. inta walaalaha ee dambe ee soo naawilay inay waxna siiyaanna iyagana waan mahadnaqayaa 90% goor. kuwa keenay ee walaalaha adduunyada daafaheega ku nool muslimiinta dhamaanteedna waan mahadnaqayaa. ilaahay mahadiya ka gaadho idinkana mahadiya iniga gaadho. deeqda aadna siiseenna aakhira ilaahay miisaanka jannada ha inigu daro. anaguna way idinka gudoomay walaalaha muslimiinta meel kasta joogaanna hagarta alla keenay kaan arkay ee noo damqaday walaalaha idinkuna ma aqoon ee nakiin barayna ilaahay aakhiro iyo adduunyadaba ka caafiyo. ina 1,200 oo noo soo dirteenna wayna soo gaadhay waanigaana gacanta ku haya. walaalka ayana soo gaarsiiyayna waan mahadnaqaynaa 90%. deeqdii aad noogu soo dhiibteenna wuu noo keenay idinkana ifi aakhiraba way idin mahadnaqaynaa. hooyada dhashay wiilkan yar ee qaba xanuunka kaga dhacay maqaarka sare ayaa ah hooyo ku nool nolol adag oo aad u daciifa. hoyga ay ka degan tahay magaalada Gargaara ayaa ah mid ka samaysan cariish iyo baco oo aan qoraxda iyo roobkaba celin karin. waqtiga xagaaga ahna ay dhib weyn ku qabaan nolosha hoygaasi iyada iyo wiilkan yar ee xanuunsanayaba. daawade baahida hooyadani haysata wiilkan yar ee xanuunsanaya maaha mid intan ku eeg ee waxay u baahan tahay cid kaalmo ka geysata dhibaatadani haysata. waxaanad ugu soo hagaajin kartaa telefoonka shaashada ka muuqda. وعلي حجر Somali Channel magaalada Saylac.